بسم الله الرحمن الرحيم. حالي مرة سيسي حانيني وحا صور دعي لبا أكون oo midna number hormuud yahay midna uu yahay bangi lagu sheegay salaam bangi kaasoo qabiilada Soomaaliyeed kamid uu dhahay waxaan rabnaa in lacagna lagu soo rido horta warka sida loo dhigay waxa ka fiicnaaday si ka wanaagsan in loo dhigo waa la ogyahay maanta xaaladda lagu jiro iyo marxaladaha ay marayso waxyaalatan ka daran laga xoolo yar yahay lagana dad yar yahayna waa la soo maray waana laga nool yahay waana laga sheekay لكن أنا واحد إلهم مقطع إن سياسة دي دقنكي أو بيش كوريري ودكتيهين بيش على مدحوين اللي يرادو سياسيين تي أي درسدين إن الدجال كو قادين إسلا بيش حوالي سياسيين تودي أو دن سياسي على مدحوين الله قصوا جرح حوالي سدي أصي صعوتين سي فشل كسياسيين تاس الله قريو وسياسيين تاس جبكي سو جاري حوجا مرة الله صارها دنا دقنكي إن لغة أنت لا سوق بتدقيقه جب لوسي هوب كجر وعلى الربا تقال بالوجرا بحديث أي تاي قبل كهيراني بيش حوالي ورك أدون كي ورك صومالي دوا كاسا جيفو تولد دقن عتقانا وما جرتو حتى عدي واحد بحينيسا مقع حوالي كو بحينيسا موقتا واحد جرى مركا وايهان دنبابا ريركا ولا قوبينا سيدي يانيو إسلام ميس جد كخركيسا كو قادانيسو قوبايس كمال لغو ما جارو قولابا الدرس نالا هاجري حتى واحد والباب الدولة دي إمام القوبالات ككه مركي إس قوبايين ما أنت حافظه هذا وحانا قون ربي مقع حمية تاريخ حموه هينو ما تعالو سياسة دي دوغو دي غيب كميده اللي سوكو بيين إنا أنا قاعدنا لغو طلالها هاد مدة درسكا كمان عديه كمان مدوبالي هدي الرهب الإسقوبيس أي كفائدين قرب أدوك ما حدوك ضيانا يسا مركب تركي على مدحوين السيدة صح ده أيوان يسيليلين وحي ورد يعني أنت صعابي ديغا وطرهارين أي كرتون كوصو دكتين وحا أي هذي وحواد لليران وقود دقيقة كمين نغن دغالها حواد لغا قادا يعني قوبجو كنغن لكن أدون كحساب علم باكا جرتو شانت غاردود إي الصوماليا مركي العاقل لغا سو أروريو inkastay shanta Soomaaliya ay shanta qaarad ka mid tahay Afrika ku taalo haddana wadanka Soomaaliya liiraa wax loo qaadayo shanta qaarad oo ka koreyso mid ka yaa marka wax laga soo aruuriyo waxaas waxa loogu talagalay waxay tahay ninka dhaawacmay iyo ninka qoriga ridaaya loogu talagalay horta la soco adiga suudka watana wax kuma lihid adiga soo cilaansadayna wax kuma lihid laakiin waxa loo hor qoorteynaya waxa ay tahay aniga kaligay one and only wax la yiraahdaa jirto haddii marka la yiri xawaad la weyn dhaqaalaha bixiyo haddana guddiga buugga watayaysan ka mid noqon sidee ku suurtagal adinka ay weydiin soo odayaashu intay wax raadiya dhahayeen maysan isbaaro u dhigan dhaqaalihi xawaadla ama Soomaali kala ku bixi lahayd dagaalka ee loogu talagalay ninka qoraga watay ninka dhaawacmay yes حساب علينا أدونك كجرتو حدي له سوق هذا 6 مليون dadkii laga soo qaaday waxay rabaan inay ogaadaan ma gaarti meesha oo xabada ninku ka ridaa u taagnay mana gaarti meesha oo yaalo sariirta ka saaraya mid ka dhaawacmay Yurub waa inay guddi yeelato Ameerika waa inay guddi yeelato Arab wixii jira waa inay guddi yeeshaan Afrika wixii jooga waa inay guddi yeeshaan Soomaaliyana waa inuu jooga guddi kala hadane laakiin أنا وعلم مدحوينه جدك حوالي وحبكم الدرسانينو متك درستينو إذن صوت دري ما هانو وحا يري سياسيين تحوالي وحبكم الدرسانين أصلا وهير كمال عبد الله إن الدجال كل جود كل نقدان سو استاجي 10 لقى مبرن 100 نكده ما سياسة دو درستين مركو كدولو عيال ويرو بحي حلبانه دي حوالي خيركو إنه كل يجي دجال كل نقطة سو كي ماشي سو استاجي هذا دغالي ما ليري هذا عد مال عدلها لسو استاجي ورنيك عربت كينايو ينك $100 ديبايو $100 waxa laga yaabaa in 3 riyood lagu soo gado oo 30 nin ku qadayso in isbaara loo dhiga ma waxa la rabaa dagaalka inta lagu jiro in dhigaha la fureysto haday rabaan xawaad la yiraahdo dhaqaalaha dhan anaga bixinayno laakiin xataa cali madaxweyne guddiga iyo wax ku yeelan markii la yiraahdo xataa 99% dhaqaalaha suucidu gaaro dagaal ku jirta waa cali madaxweynaha hadana marka saas wuxuu ogtaa marka waxa la rabaa in tiraahdo way anigu banaankan istaagay dadka hadii wax loo qabanayo u qabto waa kuwaas adinka idin ka dhasheen laakiin waxa rabtaa in tiraahdo xawaada lacag ka bixiyo
laakiin guddiga ka mid noqonayno annagu cali madaxweynaha laba akoon wadano isma qabanaysa marka dagaal maalintuu dhammaadaa la rabaa kii gunahay ee xoolo gumeed dhiibay iyo kii gobahay inaad ka sheekaysa taariikhda dambe laakiin dagaalku intuu socdo wax taariikhaba lagama sheekay karo waa in loo aamusaa dadka xawaadlii maqnaanayo gun noqonayo xawaadlii wax bixinayo gob noqonayo sida ay u sii kala gobsan yihiin cali madaxweynuhu inaad musuqmaasuqdaan oo dhex orodaan ma hayna dagaal baa lagu jiraa furun baa lagu jiraa xabada socoto ku kaligeeda cali madaxweyne haddana oo xawaadlo waajib ka saaray inay dhaqaalaha bixiyaan haddana ayagii in la eriyo maahan marka kaa badan kaa cod badan sid u raacdayna marka annagoo hal xildhibaan laa waxaan ka kari waayin war xawaadla 9 xildhibaan uu leeyahay aan wax isku darsan asariir ma loo baahna buu ciyal weera waxaan sabul soo kaligiis hore gadaal ugu ordo filada anaa xiro anaa furo leegama daba hadlo siyaasadda hadda soo galan waa ciyal weera u lahaa asigoo kaligiis la eriyaho baadiyo joogo hadda yimi oon xawaadlana ahayn dawladna ahayn odayaaliin wuxuu ugu sheekay haddana wax xawaadla la yiraahdo ma shaqayso haddana lacagta ciidan ka rabnaa waa xawaadle ninka qoriga wataa marka wuxuu badhibano u yahay dhaqankiisa iyo siyaasigiisa asiga way ka go'an tahay inuu qawaariij dilo inuu dagaalamo inuu gunnimo qaadan inuu tuuladiisa lagu xukumin degmadiisa lagu xukumin gobolkiisa lagu xukumin diyaar u yahay laakiin adeerkiisaaba koomba garab dhigto hayba siyaasigiisina siyaasigii kale oo reerka ula hadli lahayo asuguna garab ordooha guddi waxa la yiraahdaa waa wax la socda in wax la musuqmaasuqay in kaleeto hadarto wax dhigi kartaa guddu haduu 20 yahay annagu cali 10 nasiya xawaadla ma saadiidi ama wax dhigi kartiin xataa 5 xawaadla ha qaatay 15 ka annaga nasiya ama wax dhigi kartiin xataa maadaama annagu dhibku nagu dhaco hay walaalayaalow annaga dhanba banaankan ka tagaynaa xabada ridayna annagu gabadha shalay ugu dambaysay oo badarka lala yaabay oo gudoomiyaha Muqdisho ka warbixinaya badarka ugu fiican oo 48 saac lagu dagaalami karay geynaysa cali madaxweyne ma ahayd maxaa dadka loo fiijinaa marka tii ka horeyso shidaalka wada cali madaxweyne ahayd dadka maxaa loo eriyaa walaalayaal ma ogtihiin in ay xawaadle kala fogeynayso haday 4 oday akoon meel ku soo qortaan ma si xilli dagaal lagu jiro waqtigeedii la joogaa dadka in la kala diro حتى هداد أكتهي إن ولالك ما أنتي كفر حسين يدبك كورة هداد أكتها حتى وحافي عني ندوء مستود مركة لك الشاكي سواب هداد جرتو لكن أسيقي وراها العاقان ديبه وحوالا بولو برتسكو كان وقد يان سمينا وين حوالا دغالب بحي أسيقي وراها وحلاذا أنك أكون كاين وين العقد كسور عضا دباتي انتي ذا لأك وايين حيالك لو بدنو لشي كرم باجرو فشحارية بدنا مالك اللي سو شيغي كون بدن ميلوين كلا باي جرتها لدهي جانس با لو ارك dagaalkii hore beeraya bal waxaan ogeynay jaadley ka xariiftanta shidaalka iyo rasaasta bakusyada ku jirto laakiin hadda qaab kale maaliyadeed isku bedeshay waxay wax ka qaldan yihiin marka waa dhaqanka iyo siyaasadda cali madaxweyne ee cali madaxweynaha ballaaran waxay haleeyeen on xawaadle jacayl iyo in qawaariij xoreeyaan ayagu dhintaan aan ahayn maba jirto laakiin kii ayagii dadka u dhaxeeya wax ku dheeloohay siyaasiyiin siyaasiyiinta xawaadle lagu ma karo dhaqankii xawaadle lagu ma karo haddii marka dhibku meeshu ka imaanaya waxay tahay nabadoonka sidiisa markii horeba waxa watay niman ganacsi ku ilaalsanayo iyo niman siyaasad xawaadle gobolka ka gadmi wayso ku ilaalsanaa keensadaba markii hore wuu ku qasbaya markii wixii dheh la yiraahdo inuu yiraahdo waa markaan la isindha tiriya cali baadiyo iyo geed libiya hoos degan sidiisaba nabadooni duubteen ma ahayn 4 sano kursiga cali madaxweyne muxuu uga hadli waa hadduu nin xorho cali madaxweyne u madax banaan u yahay daawan ku heli lahayn dawladda wax uga heli lahayn nin xasaanad loo adduunka wax ka keeni karo noqon lahaa sidee qabiil intaas dhamo xildhibaan laan ku noqon kara kursina u leh muxuu uga hadli waa nabadoonku bangiba waa ka hadlay lacag lagu soo shubayo markii horeba jaadley jaad ku difaacanayso iyo maamul Hirshabeelle ee soco waayay niman in la socodsiyo rabo maamul gobolka ka gadmi waayay xawaalaha dhaxdiisa raggaas baa ninkan markiisii horeba ayagoo sido
meel teedaan la yiraahdo tacsiyo ka dhacayso aan anagu TV ka aragnaba yaan lagu dheelin marka xilligan ka xuntaa waa la soo maray anigu dadkii 91kii joogan kamid ahaa colkii la diriray taangiina waa wata diyaaradana waa wata dadkii la dirirayna dadkan waa ka yaraay waana ka xoolo yaraay dibadahan saan loo joogay dollarkan iyo baqaaradan iyo moolashaan ma jirin taleefana ma jirin hadda dagaalku markuu aadan yahay ka socdo ilaa Mareykan 1 daqiiqan ku wada helayna laakiin waagaas jugtaan maqli jirnay qof socdo shalay la soo diray oo kidibkiisa dad badan u dhinteen warkuu noo keeni jiray wax xusista geela la iska aruuri jiray oo xaajiyo laba xaajiya jirtay dhibaatada la soo maro laga sheekeen idin sheega maanta hadda naagta iriga la jirtaa baawar wadato midda iriga la jirtaa taleefan haysto daqiiqad warku soo laakiin soon taleefan jira oo inta xaaji 50 la soo diro niman la soo saaro geel la aruuriyo geelaas la safriyo rasaas lagu soo gaday kadib duulaan la qaadaan soo joogin anigana soo joogay raggii xaajiyada staffka ka ahaay ee ninkii geel diida soo xiri jiray waxa kamid ah Ibrahim Xuseen Waadinin la yiraahdo waxa wala carara ma aragtay inuu maalin ugu yiri anoo geel la jiro intuu maray meelahan ii sheegay yiri meel wali degan kuwa wala qaaraanka diidan adinka labadiina halaad shalay la qumiyayo waa naga horeeyaan markii heerkaas la soo maro taleefan jiray oo warku 3 biri soo soconayo markaas baa maanta hal WhatsApp lagu wada jiro si aan loo tuugsan jirin xilligaas hadda loo tuugsado ayaa iska yeelay markii علي مدحوينه ما أنت عدك حول بدن ما جرت حدان لبعتني إنه جديو علي مدحوينه مجعاو أون إرادة حركية قال القات عد كستو علي مدحوينه كي إلو جوجنا هل ربس كصوّر كي جيلو جوجنا هل كل جيدا بس كصوّر هذا إرادة طبعا كالسنة أو صوص عطوكو فيلم هدانا قاعدين بقارات بقولوا برتقية بلدوينية مقدشية كويا لي يقربان أنا قاعد هل جيل بس على نينها ليك أنا دانتو marka qaab badan wax loo aruuriyaa jiray way xal waxa fashil ceebad laga yaabay siyaasad soo fashilantay in dhaqanka dhinaciisa lagu dhaqaayo anagu ma naqaano laakiin waxaana la fahmi karin horay u dhici doonin ay ahayd war maxilligii Ibrahim Xuseen Waadi xaaji 50 geel ku aruuri jiray ka xuntahay maanta kama xumo wallahi inayna ka xumayn oo laga yaabo 5 maalin asoo sii maqan gadaashiisa inay 100 qof dhimato oo na war ka hayn oo na taleefan jiray waxba lama ogeyn geedka qofkii la wareego cid ogeed ma jirto